بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn magacaygu waa Qadar Cabdi Bashiir waxaan ahay dhalinyarada oo ku sugan magaalada Nairobi xaafadda Isli danaynaysan inay ku noolaadaan wadamada dibadaha runtii waxaan ka imid Soomaaliya oo dagaal iyo waxyaabo noocaas aan uga imid Afrika inaan ka tago oo aan go'aansado inaan dibadda aado waxa ugu khasbay waa dhibaatooyinka wadankii ka socda marka waxaan jeclahay inaan ku noolaado Yurub meel kala danaynaysa anyway wadamada reer galbeedka aad baan u jeclahay inaan ku noolaado meeshaas markii la aadayo waxaa loo baahan yahay qarash aad u fara badan maxaa diiday qarashkaas inaad shaqo abuur ku samaysato walaal runtii dhalinyarada oo hadda levelkayga ah waxay u badan yihiin waa ogtahay dibadaha iyo waxyaabo noocaas ah marka Afrika shaqooyinka yaalo ma ahan shaqooyin aniga aan jeclaystay yani oo yani shaqooyin aan ku qanacanahay saas ay u kaliftay inaan dibadda aan doorto waxaa jira dad soo laabta waayadii dambe ee ka soo guuro wadamada adigu aad rajaynaysid inaad gaartid maxaa ku kala duwan tihiin qofkaas soo guuraayo oo Nairobi imaanayo oo wax ka baranayo ka shaqaysanayo iyo adiga runtii qof walba wuxuu leeyahay hadaf iyo wuxuu jecel yahay aniga jecelkayga meeshaas waay wixii imaanayo iyo wixii baxay ayaga u tala leeyahay okay marka wadanku gaar oo aad jeceshahay inaad ku noolaatid isla markaana aaminsan tahay inaad mustaqbal ka sameyn karto ma jira America waxaan aad jeclahay America inaan ku noolaado meel aad u wanaagsan nolosheeda shaqo fiican leh waxbarasho leh runtii intaas wadankayga aan ka taga aan cararisa uga cararay maaha laakiin haddii aan wadankayga u soo shaqaysto aan wax u soo fahmo runtii waxaan jeclahay mustaqbalka inaan wax fiican ka bedeli doono hadduu Ilaahay yiraahdo ujeedka u socdo maaha in oo xagga aad tag weligii aad joogi doono waa tahay America inay fiican tahay marka laga reebo inaad dhagaha ka maqashay maxaa ku dheer runtii waxaa ku nool dhalinyaraan isnaqaano oo markii xagga tagay noloshooda wax badan ka bedelmay qaar family ay jiro oo ayagana xagga ku nool marka ayaga noloshooda aad isku bedeshay marka sidaas ku doortay ma jiraan dhalinyaradaas adiga garanaysid ee Mareykanka tagay ee wax ka qabsaday qaar inta ku soo laabtay oo wax ka qabsaday runtii ma arkin dhalinyaro oo sidaas sameeyeen laakiin dhalinyaro way jiraan oo fara badan oo xagga jiraan aan si fiican u garanayo mustaqbalka maxaa rajaynaysaa inaad noqoto madaxweynaha Soomaaliya mustaqbalka waxaan rajaynayaa runtii qof magac leh inaan noqdo madaxweynaha ugu weyn aan ku haminayo inaan noqdo sidoo kale haddii ay noqon weyso inaan waayo waxaan rajaynayo waxaan jeclahay dadka oo masaakiinta ah inaan caawiyo qof meel fiican ka soo baxo Soomaalida oo lagu xisaabtamo inaan noqdo insha Allah haddaa weyso inaad baxdid ama aad leenkaas hesho ama meesha jecleed aad gaari weyso maxaa kuu qorshaysan inaad samaysid wallahi runtii ma jeclan laakiin haddii ay noqoto kulay wadankii ku laaban doonaa oo jaamacaddii waxaas iska sii dhigan doonaa waana ka shaqaysan doonaa hadda hamiyaa leeyahay oo igu jir inaan meelahaas aado oo aan wax fiican soo qabsado qarash intee la egaa diyaar ula tahay inaad ku bixisid dhoofidaas wallaahi 20,000 ilaa 20,000 dollar 20,000 dollar qof haysta qof lacag haysta waa waxyaabo badan oo aad ku qabsan kartid ayaa jira maxaa diiday inaad ku qabsato والله runtii waxaas aniga ma soo jeedi hal wada ay furno inaan Afrika ka dhoofo oo kaliya waa tahay adoo 20,000 ku bixiyay dhoofidaas ka soo qaad waa tagtay meeshii aad u socotay ee hamigaaga ahayd haddii aad weyso waxaad ka qabato isla markaana ay kugu socon weydo maxaa sameynaysaa wallahi rajada igu jirta hadda waa inaan wax qabsado haddii ay noqon weyso kale waa la qasaari jiro waana la faa'iidi jiray inaan soo laabtay noqonaysa haddana laakiin ma rajeynayo inaad dhici doonto arrintaas ayada ah waa tahay marka maxaa is leedahay dhalinyarada way ka hortaagan tahay in ay meelaha ay joogaan ama Soomaaliya ha ahaato ama Kenya ha ahaato inay ka shaqaystaan oo kaliya maxay ugu fikirayaan inay wadamadaas ka shaqaysan karaan wallahi runtii waxaa ku khasbaa
maxay ahayd madaxda dhalinyarada markii qof jaamacad dhameeyo oo kale oo shaqo la-aan ay ku dhaceyso oo kale oo shaqo oo helin waxyaabahaas oo ku kalifaya inay waddanka isaga cararaan marka madaxdeena u sababa isleeyahay Soomaaliya maxaa fariin u diraysaa inay wax ka bedelaan والله madaxda Soomaaliya waxaan leeyahay inay taageeraan dhalinyarada Soomaaliya ubaxa ayaga bedeli doono ayaga ay noqon doonaan kulay marka waxaan leeyahay madaxda Soomaaliya ugu horeeya Farmaajo Xasan Cali Khayre dhamaantood waxaan leeyahay inay taageeraan dhalinyarada